بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan kusoo jirnaa casharadii waaweynaa ee kabaa'irta. waxaan gelaynaa hadda cashar runtii ka mid ah casharada ugu waaweyn runtii kabaa'irta, qaybaha ugu waaweyn kabaa'irta ka mid ah oo runtii aad iyo aad u culus diinta islaamka dhexdeedana khatar weyn ku ah. nasiib darrase ay dad fara badan oo islaam sheeganaya ay sahladaan, taasoo ah dilka, qatlu nafs allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. walaalayaal sida arrintan diinta islaamku ay uga hadashay wax looga hadlay maba jiraanba runtii, diinta islaamka dhexdeeda maba ku jiraanba. waxaad ogtihiin walaalayaal, ilaahay markuu bani aadamka samaynayay malaa'igta ayuu u bandhigay, wuxuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliif ayaa dhulka u samaynayaa, suuratulbaqara aayadda ku jirta. markaasi malaa'igtu waxay ku yidhahdeen yaa rabbi, annagaaba ku tasbiixsanayne mid dhulka fasaadiya oo dhiig ku daadiya miyaad abuuraysaa? macnaha malaa'igtu inay ogaayeenaad u malaysaa in bani aadamku dhiig daadinayo, fasaadna uu samaynayo. markaasuu ilaahay ku yidhi waxaadnan ogeynaan ogahay. ilaahay subxaanahu watacaala isagaa og waxaanan ogeyn, isagaa og wax aan malaa'igtu ogeyn subxaanahu watacaala. allah wuu sameeyey bani aadan, waxayna samaynayaan dhigdaadiskii iyo fasaadkii samaynayaan. meeshaan ayaa ilaahay ugu hadla marka subxaanahu watacaala suuratu nisa aayadda 92. rabbi wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an. qof mu'mina maba ka suurowdaba, suuragalba maahanba inuu dilo qof mu'min ahoo kale walaalkiisa ilaa khada'an, gef mooyaane, inuu ku khaldama mooyaane. qof baa warjogsiiyey, qof dharbaaxa ku dhacday, qof meel lagu riixay oo taranturooday oo dhintay, qof inta wax la iska tuuray aan la ogeyn ay isaga dhaceen oo ulajeedo iyo midna wax la dilo aan loodan lahayn. macnaha khada noocaasa qof ku dhinta mooyaane kas in loo dilo suuragal maahan ayuu ilahay yidhi subxaana watacaala. waxaa ku xiga marka axkaan ka ratibmaysa qofka gefka loo dilo, macnaha sida kama aan loo dilo, axkaan fara badan aa ka ratibmaysa meeshaas. marka mawduuc anagu maanta maahan saas axkaamtaas inaan fasirno. waxaan u gudbayaa aayadda ku xigta oo macnaha aan oran karo waa aayadda ugu culus qur'aanka dhexdiisa ee ciqaabka ilaahay ka digaysa. aayadda ugu culus qur'aanka. qofka shirkiya ilaahay muxuu yidhi? faqad xarama allahu calayhi aljanna. ilaahay jannada ayuu ka xarimay. ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. shirkiga, كفرك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. كفرك يا شركك يحب النعاس. منافقة إلهي وحكيري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قيامها قفك بيني إلهي وحكيري سورة الفرقان واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. كو حولها قونت عني إلهي وحكيري إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بدونهم نارا. كو أيضها إلهي قرنية سيدا سكريته إنما يأكلون في بدونهم إلى النار. الذين وحيابا نعاسا. لكن آيات عن مرنا بقى عادي ما وحيابا كسو أروري وعقابك إلهي بحوليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا سكس أقفك مؤمن أدله فجزاؤه جهنم. هرتكو جسدي سوى جهنم كل جيس أجل الله الله يا بالفيش ماشان فجزاؤه جهنم والعياذ بالله خالدا فيها ولبو قواريا وغضب الله عليه إلهينا هو عراضي ولعنه ورنا عضلي وأعد له عذابا عظيما. عذاب وينه وديار انت هاس يا إلهي صدق بدك وحشك كجرا مركا ورنتي على سؤال صار كرا أرنتها نسيده إن توبت لي هاي إنكريته. sababtu waxa waaye waxyaabaha meeshan ku yaala maba ahanba wax caadiya maba ahanba, inkastoo ilaah uu yiri subxaanahu watacaala aayad qur'aan ku jirta suuratu zumar qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illahi in allaha yakfiru dunuuba jamiican. ilahay dembiyada dhan wuu dhaafaa haddii loo toobad keeno subxaanahu watacaala, oo toobad wax walba inay leeyihiin ayaddaas u sheegaysaa. in mu'minka dhiiggiisa laga xarimayo aayaddan ku xigta bal fiirsha walaalayaal sii akhriya aayadda ku xigta aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
mu'miniintii haddaad safraysaan ama aad dhulka ku socotaan waddada ilahay ay ku socotaan fatabayanuu hubiya ayuu ilahay yidhi subxana wa tacaala walaa taquuluu liman alqa ilaykum asalaama lasta mu'minan qof salaan idiin soo radiyey mu'min maahid ha dhihinina waa laydinka reebay macnaha tusaalahan ku xiga dilka ayaa wuxuu yahay tusaale cajiib asaga naftarkiisu oo qof laga yaabo aad og tahay inuusan muslimba ahaynba hadduu ku yidhaha assalaamu calaykum waxaa ilaahay kaa reebaya inaad tirahdo mu'min maahid taas waxaa la dhowrayaa dhiigga mu'minkaa la dhowrayaa aayaddan waxaa meesha ilaahay u keenay wax badanna waxaan soo caddaynay qur-aanku habka u dhisan yahay aayadaha iyo wax dhan isugu xiran yihiin wax ka baxsan weeye bani aadamka awooddiisa iyo caqligiisa iyo xigmaddiisa intaba ka baxsan weeye wax ilaahay keliya awooddeeda iska leeyahay waa waxaan tegaynaa suuradda la yidhaha suuratul ancaam aan tegaynaa walaalayaal aayadda 151 iyo 152 runtii waxaan odhan karaa labadaas aayadood iyo aayadda ka hooseyda saddexdaas aayadoodba waa aayadaha 90% soo koobaya waxyaabaha aan ka hadlaynay oo ah maxay ahaato muxarimaadka ah ama maxay ahaato kabaa'irta ah soo koobayaba meeshaan kusoo idlaynayaba iyo sidoo kaleeto suuratul israa ayada ku jiro kaleeto ilaahay meesha wuxuu ku leeyahay kaalaya bal aan idinku akhriyo waxa ilaahay idinka xarimay qul ta'aalu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an inana waxba la wadaajin allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana waaridka asxana u samaysaan bar u noqotaan wala taqtulu awlaadakum min imlaaqin caruurtiina inaydaan dilin adinkoo gaajo ka baqaya naxnu narzuqukum wa iyaahum waaridka iyo ilmahaba ilaahay baa irsaaqaya subhanahu wa ta'ala wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma badan fawaahishta quraanku badana wuxuu adeegsadaa zinada ayuu adeegsadaa ilaahay ayadkan wuxuu ku yiri suuratul isra ku jirta wuxuu ku yiri wala taqrabu zina innahu kana faahishatan wa sa'a sabiilan fawaahishtana ka fogaada zinada kaleeta midda muuqata oo banaanka taala iyo midda qarsoon qofka marada la hoos gala labadaba ka fogaada ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq naf ilaahay xarimayna dilkeeda oo ilaahay karaamiyay xaramnimadaas waxay noqon kartaa baytul haram oo kaleeto qof ilaahay ilaalshay dhiigeeda oo xafiday in lagu xadgudbin oo ka ilaalshay ha ku xadgudbin oo xaq darra ku dirina wasaakum bihi la'al dalikum wasaakum bihi la'allakum taqilun sidaas ay ilaahay idin daarmaya hadda aqal waxa laga yaabaa inaad aqliyeystaan meesha naf ay ilaahay sheegay naf oo dhan buu ilaahay sheegay ayad kale ilaahay wuxuu ku sheegay sidoo kale suuratul isra oo kale ku jirta wala taqtulu nafsa allati harrama Allah ilaahay kulay nafu sheegaya meeshii horena waxaan ku soo aragnay mu'mina ku soo aragnay ayad kale oo suurad kale ku jirta ilaahay wuxuu leeyahay annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قف قردر كدله أسوأ دولك فسادين وأن نفكر الدين دله وحول مديهي مد ددك بني آدم كعرض جوجو دولاي كين نولاي قفنا وحول مديها أسوأ بني آدم كدان دولاي أيدك حكت إلهي وصي ولا وحولي ولا تقربوا مع اليتيم ووحيابي أن كهلي إنه ركبة إرتاهاي وكل قد عيدان كسو ودا أرور وحيابي ما شكو يال ilma goonta xooluhu ha cunanina bilaasha ku cunanina ila ay ka xoogabaan وأوفل كيلو والميزان ميزان كان وان بهالمامي يبقى خطر وياك نفتركود وعيد فربدنا كسو أروري باقي يميزان كان هلا سكيل على شغل عليال إلهنا نف مكلفه إلهي لي سبحانه وتعالى وحي أود موياني وإذا قلتم فعدلوا هذا الشيء يستن هذا ونكسر شيء ولو كان ذا قربى قرابة ذي كان لي حين الحق إناس شقته وبعهد الله أوفوا بلنت إلهينا أوفية ولا ليال يهل أوفي بلنت إلهي ولا سويدينية وكان عبد الله مسؤول إلهي بلنتي سوى سويدينية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إلهي ساسو إذن الدار ميا وحال لغا يابا إناد وحاسوستاني أو مسكحدين في عناته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ودديدي واتاسو إلهي لي سبحانه وتعالى مستقيما توصن ولبا ودد توصن إصحدا وآيضاهم قفك كلهم يوي ولا ليال فاتبعوه أياك راعة ولا تتبعوا السبل waxyaabaha kale to dariiqada kale taa aqwaal ulama fara badan shayaadiin fara badan kaaba qabiilo fara badan oo dadka idin iftoonayna soo leeysan qabiil hebel ku duulay nin hebel mucaarada hal soo dilo waxyaabahaas waa subul wadooyin ka leexleexanaya wadada ilaahay weey ha raacinina khatar weeyaan wadada ilaahay kale ka weecanaysa markaas dalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun taasa ilaahay idin dardaarmaya inaad ku waansuntaan laga yaabaa hadalkiigu wuxuu yahay walaalayaal hal laga digtoonaado naf bani aadana in la gooyo hal laga digtoonaado walaa hal laga haro wallahi baan ku dhaartay waa khatar waxyaabaha ugu waaweyn ee halista weey ilaahay nagu anfaco caalamul islaamna waxa rubay waa arintaas hal laga haro walaalayaalo ka hara ilaahay dartiis uga hara
wasalaamu calaykum.